dunida fayoobi samaha kama dhoohane qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan wanaaga dhashay arkaan dhibciya dhalag bay arkaan qaranka dhis gegida diyuuraduhu ka haadaan kana soo degaane caalamku waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka waxayna qayb muhiima ka yihiin kobaca wadamada iyo korodhka qaramada Somaliland 10kii sannadood ee ugu dambeeyay waxay lahayd hal madaar oo ah kan caasimadda kaasi oo ahaa ka kaliya ee ay isticmaalaan bulshada Somaliland qof kasta oo ka dhoofaya guud ahaan Somaliland ama ka soo degaya waxa khasab ku ahayd inay adeegsadaan gegida diyuuradaha ee cigaal heshiiskii maalgashi iyo iskaashi ee Somaliland iyo Imaaraadka dhex maray dabayaaqadii sanadkii 2016 ayaa dawladda Imaaraadka u ogolaanayay inay gegida diyuuradaha berbera oo xidhnaa ka dhigtaan garoon military oo ay adeegsadaan ciidamada cirka ee Imaaraadku balse curashadii xukuumadda madaxweyne Biixi oo qorshayaashiisa horumarinta ay qayb weyn ka ahaayeen madaarada dalku waxa uu madaxweynuhu go'aamiyay in gegida diyuuradaha berberi ahaado mid shicib oo loo adeegsado ganacsiga iyo socdaalka rayidka garoolkii berbera in badan laga burmaayay Imaaraadku dhisayeen la hawa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qoraha ciidankii waan ka wareejiyay waa shibil maanta heshiis kadibna waxa Somaliland iyo saaxiibkeeda Imaaraadku bilaabeen dib u dhiska iyo casriyeynta madaarka berbera waxa guud ahaan la qaaday oo dib loo dhisay dhabadii diyuuraduhu ku duulayeen waxa loo sameeyay 30 kiiloomitir oo xayndaab ah waxa si casri ah loo qalabeeyay terminalkii waxa la dhisay hangaro leh qaboojiyayaal loogu talagalay kaargooga iyo agabka transitka waxa loo sameeyay leedharkii sahlayay in habeenkii ay ka soo degaan kana duulaan diyaaraduhu waxa lagu diyaariyay ciidamadii ka gurman lahaa xaaladaha degdega halka loo dhameystiray shaqaalihii iyo howlwadeenno u diyaarsan ka howlgelidda madaar caalami ah garoonkan maanta waa ogeeyay wixii ka dhacay maanta waxaan ka joognaa garoon caalami ah oo gobolada adduunka ugu weyn oo ay walaalada Imaaraadku inoo hawlgeliyeen inagana waxa la naga rabaa inaynu u diyaar garowno sidii ummadda caalamka oo dhan halkan soo mar lahayd geeska Afrika iskaashi kadib berberi waxay hadda leedahay madaarka ugu baaxadda weyn iyo kan ugu reynweyga dheer qaaradda Afrika marka laga yimaado shacabka iyo ganacsiga dalka ee adeegsan doona madaarkan Somaliland oo maalinba maalinta ka dambaysa u furmaysa adduunka kuna taala mandaqad istaraatiijiya waxay hantiyaysaa gegid diyuuradeed oo ay isticmaalaan duulimaadada caalamka isaga kala gooshaya iyo ganacsiga adduunka ee mara mandaqadan muhiimka wuxuuna qayb weyn ka qaadan doonaa kobaca dhaqaalaha dalka korodhka ganacsiga wuxuuna isku xidhi doonaa Somaliland iyo dunida caqabad sida dhooh ilaa